ninkii qaybta bini'aadanka ka ah qaybta kalena malaa'ig ka ahay ayaa wuxuu ku dhahay maalin walba marka badda imaado waxa ay keentaa fawaakiida waxyaabaha qudaarta la cuno sida tufaaxa iyo canabka iyo wixii la midka ah anigana waxaan kuu keeni doonaa jawaahirta badda waxyaabaha qaaliga lu'lu'da marjaanka badda laga helo ayaan kuu keeni doonaa sidaas ayay ku ballameen ninkii kalluumaysatada ahay asoo faraxsan ayuu soo laabtay wuxuuna soo maray sida caadada ee suuqa ninkii muufada dubi jira ayaa muufa soo siiyey sidoo kale wuxuu soo siiyey 10 dirham cidiisa ayuu la imaaday wuxuuna uga sheekeeyey qisadii maanta oo badda kala kulmay inuu la kulmay nin qaybta hore bini'aadanka ah qaybta dambana malaa'ika ah suuq ayuu soo maray wuxuuna hore u soo gaday salad ay ku jiraan qudaarta fawaakiida badda ayuu la imaaday sida ku ballamay saaxiibkiisa wax yar kadib markuu joogay waxaa soo baxay isla markii ninkii saaxiibkiisa ah ee badda ku jiray wuxuu ku wareejiyey fawaakiidii badda ayuu la galay fawaakiidii xoogaa kadib markuu maqnaay wuu soo baxay wuxuuna u keenay dambiil ay ka buuxaan marjaanka ama lu'lu'a qaaliga ah ayuu u keenay ninkii aad ayuu u farxay maadaama lu'lu'a marjaanka loo keenay oo yahay wax qaali ah oo aan laga helin deegaanka oo asiga joogo badda hoosteeda ayaana looga soo bixiyey kadibna waxay ku ballameen subax walbo inuu fawaakiidan u keeno asigana u keeni doono marjaanka badda laga helo ninkii kalluumaysatada asoo faraxsan ayuu soo laabtay wuxuuna u imaaday saaxiibkiisa muufada dubi jiray qayb ka mid a marjaankii lu'lu'i ayuu ku wareejiyey wuxuuna dhahay wax badan ay caawisay maantana qaybtan ayaan ku siinayaa ninkii muufada dubi jiray wuxuu ku dhahay maanta kadib aniga waa ay gadatay khadimkaada ayaan ahay muufadana waa kuu qaada xaafadda ayaan ku raacaa sidaas ayuu xaafadda ugu soo raacay gurigiisa ayuu la tagay ilmihiisa ayuu muufada u qaybiyey sidoo kale suuqa wuxuu hore uga soo maray qudaartii iyo hilibkii iyo iidaankii ay cidda u baahnaayeen cidda ayuuna u keenay subax walba marka wuxuu samay jiray inuu kallaho oo badda ku kallaho suuqana uu ka sii maro qudaartii oo u geeyey ninka badda ku jiro ninkana badda ayuu ka soo bixi jiray wuxuuna sidoo kale asna ku wareeji jiray dambiil ay ku jiraan lu'lu'a iyo marjaanka xaaskiisa ayaa markii dambe waxay ku dhahday iska ilaali sirtaadii arrimahaada aan la ogaanin in lu'lu'a marjaanka aad badda ka heshid haddii lagu ogaado waxaa laga yaabaa ay tiri in naftaada khatar gasho isilaali subaxyada ka mid ayuu wuxuu soo qaaday lu'lu'a marjaankii wuxuuna keenay suuqa meelaha lagu gado nin ayuu u geeyey wuxuuna dhahaa alaabtan iga gado ninkii markuu alaabta fiiriyey wuxuu ka shakiyey alaabtan ninkan faqiirka intuu ka keeni karaa waxaana jirtay aryadaas marka uu deganay asiga waxaa ka talinaya boqorka gabadhiisa ayaa waxaa ka maqneed katiinado oo marjaan laga sameeyey marka wuxuus dhahay alaabta ka maqan boqorka gabadhiisa waxaa laga yaabaa inay alaabtan tahay kadib ninkii askar ayuu ku dalbaday boqorkii ayaa loo geeyey wuxuuna dhahay ninkan ayaa alaabtan suuqa wareejinaya inuu gadoo rabay anigana waxaa uga shakiyey alaabtii gabadha ka maqneed ee ha la weydiiyey gabadha inay alaabtan alaabteedii tahay in kale boqorkii alaabtii sanduuq ayaa lagu riday wuxuuna dhahay gabadha loo geeyo hadday alaabteeda tahay haddayse inaa soo sheegto gabadhii boqorka dhalay alaabtii marka loo geeyey waxay dhahday alaabtan aniga ma lihi waa alaab aad u qurux badan alaabtaanna lama helo ee waxaad ku dhahdaa boqorka alaabtan noo gado waayo alaabtan waa alaab qaali ah boqorkii markii warbixintii loo sheegay in alaabtan aysan lahayn gabadhiisa wuxuu ku qayliyey oo canaantay ninkii u keenay ninka kalluumaysatada ah wuxuuna ku dhahay ninka maskiinka ah ilaahay xaggiisa in laga irsaaq ayaa laga yaabaa marka waxaana ma soo xadin maxaad u keentay ninkan oo dhibaatadan u gelisay boqorkii wuxuu wareystay ninkii kalluumaysatada ahay wuxuuna weydiiyey halka uu ka helay lu'lu'a marjaankan oo deegaanka aan laga helin ninkii kalluumaysatada ahay boqorka wuxuu ugu warramay qisadiisa boqorkii wuxuu dhahaa maasha allah waxaad tahay nin aad wanaagsan qalbi wanaagsan waxaan rabaa inaan gabadhay kugu daro oo aad aniga la degto ninkii kalluumaysatada ahaa wuu cudur daarto wuxuu ku dhahay aniga waxaan leeyahay 9 carruur iyo xaaskayana faqri iyo nolol adag ayay la soo martay macquulna maaha inaan naa kale la guursado ama aan ka taga ayada boqorka wuxuu ku dhahaa marka hadday saas tahay dhib ma lahan waxaa noqonaysaa wasiir ayaa ii noqonaysaa wuxuu ku dhahaa aniga ayaa wasiir ii noqonaysaa xaaskaadii carruurtaadana halkan ayaa keensanaysaa ninkii kalluumaysatada aad ayuu u farxay wuxuuna u noqday boqorkii wasiir maalmo kadib wuu soo baxa marka wuxuu soo raadiyey saaxiibkiisa oo muufada gadi jiray kadibna waxaa loo sheegay inuu xanuunsan yahay gurigiisa ku jiro gurigiisa ayuu ugu imaaday ninkii muufada gadi jiray markuu arkay saaxiibkiis wuu ku soo booday wuxuuna ku dhahay markii suuqa lagaa watay oo boqorka dhankiisa lagu waday ayaan arrintaas ka baqay in anigana la soo raadiyo raadkii soo galo sidaas ayaan u dhuntay wuxuu ku dhahay boqorka aniga wasiir iga dhigay wax dhiba ma jiraan haddana adigan kuu imaaday waxaan rabaa inaan boqorka kuu geeyo
boqorka ayaa u tagan labadooda wuxuuna ku dhahay ninka muufada gado waa nin aad u wanaagsan waa ninkii caawi jiray markaan faqiirka ahay boqorkii ninkii muufada gadi jiray ninkaan asxaanka u sameey jiray wuxuu ka dhigay wasiir labaad sidoo kale boqorka wuxuu ku dhahay eelkaada soo wado ee halkan qasriga boqortooyada keenso ninkii kalluumaysatada ahay maadaama wasiir laga dhigay reerkiisana uu soo waday wuxuuna keenay qasriga boqorka sidoo kale xaaskiisa waxaa laga dhigay wasiirad noloshii ninkii kalluumaysatada ah oo faqiirka ahay isla markiiba way isbedeshay marka qisadan waxaa ku jirto in ilaahay haddii faqri iyo xaalad xun ku jirto in maalin maalmaha ka mid ah oo nolosha faqriga kaa bixi doono haddaa qisadan ka heshay waa qiso aad u qurux badan janaalka subscribe ku samey comment ka soo bixi sheekada saxaabtaada la wadaag